madaxa xukuumadda galmudug ayaa la sheegay inuu soo saaray amarad deegaanada maamulkaasi looga mamnuucayo fulinta amarada ka soo baxa dowladda dhexe. warkaani waxaa noo faahfaahinaya farxaan maxamed xuseen. madaxda ahlu sunna oo shir degdeg ah la qaatay maamulada degmooyinka gacanta ay horey ugu haysay ahlu sunna ka hor inta aysan la midoobin maamulka galmudug sida ay ila xogogaal ay xaqiijiyeen qaar ka mid a dadkii shirkaasi ka qaybgalay ahlu sunna ayaa ogeysiiyey maamulada degmooyinka inuu jiro khilaaf ku aadan ahlu sunna iyo dowladda dhexe maadaama aan la fulin qodobadii lagu heshiiyey qaarkood sida ay wararka sheegayaan. madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka ahlu sunna ayaa ku amray maamulada degmooyinka dhuusamareeb, gurceel, mareerguri iyo matabaan inaysan qaadan karin amar aan ka ahayn midka hoggaanka ahlu sunna. saraakiisha ahlu sunna oo kulanka ka qayb ahaa ayaa lagu amray in garoomada diyaaradaha ay ka ilaaliyaan ciidamo laga soo dejiyo. madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa dhowaan shaki geliyey heshiiskii dowladda federaalka soomaaliya ay la galeen maamulka ahlu sunna isagoona su-aal ka keenay dhaqdhaqaaqyo ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug iyo qorshayaal ay ka wado dowladda federaalka soomaaliya ee la xiriira howlaha maamul dhisidda galmudug. tan iyo markii uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ka soo tagay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa iska soo dababaxayay digniinaha ay soo jeedinayeen madaxda ahlu sunna ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug islamarkaana ku socda madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyagoona sheegay in heshiisyadii qaarkood laga baxay. madaxa xukuumadda galmudug oo shirka ka qaybgalay ayaa si cad u sheegay inuu jiro khilaaf u dhexeeya ahlu sunna iyo dowladda dhexe ee soomaaliya sida ay wararka sheegayaan. sidoo kale waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ku sugan guddigii dib u heshiisiinta dadka degan deegaanada maamulka galmudug. waa su-aasha meesha taallo oo dadka degan deegaanada galmudug ay isweydiinayaan ma maamulka galmudug dhisidiisa ahlu sunna ayaa caqabad ku ah ama dadka degan deegaanada galmudug oo kala aragti duwan oo ay adag tahay in la isu keeno.